waxay leeyanayaan kuwa yaryari waqtiyada abaaraha intooda ugu badan. waxay sidoo kale ku dhintaan mararka qaarkood faragelin kaga timaada shisheeyaha iyo kuwa labka ee ka qaada xadkooda. libaaxyada Ufumbi waxay ku suntan yihiin isku duubnida balse badbaadadoodu waa midida labada af leh. markasta ay ku yaryar gaajoodaan waa cadaadiska fuulaya kuwa dhadiga oo ka masuula inay quudiyaan. waxay weli aragtidan ku kooban tahay kuwa dhadiga iyo cagabaruurada waxayna weli arag Ufumbi Bride kuwoodii labka ahaa. وقار هذه التير كفوجن إلى أن تحت كوده وحكى فوجيهين كسوجد بيستك واللبكة إعداء كوا. وقار لوجر نوجي هنا كم غير حتى أنت كلا وحكى فريقان كون ياشا وحيسكيل علينا يان لبحية كلا كوا سوحت كوده سوق كرا كنا قاعد كرا حت كوده لما رهان تعسين وقتكم من أي لقطان رهان أنت كلا. waxay daba joogan tiimkan inay arkaan raxanta libaaxyada kuwooda labka toddobaad dhowr oo aanay arag hal mar ayay wax isbedeli karaan. waxay sugaanba subaxyada kamid ah ayaan dhahoodu waxay qabteen mid laba oo la jooga kuwa dhadiga qoyskan Ufumbi balse wuxuu la muuqday mid ajaanib ah hadduu yahay ajaanib wuxuu leen doonaa cagabaruurada. sidoo kalena kuwa dhadiga way la dagaalamaan libaaxyada ajaanibka hadday karaan. boqolkiiba 30 ayaa lagu qiyaasaa dhimashada kuwa dhadiga u dhintaan difaacayaan dhalahooda cagabaruurka yaryar kuwaas oo ka difaacayaan libaaxyada soo galeetiga ee kala wareega iyaga xadkooda isla markaana ka adkaada kuwa labka ay maamulaya. nasiib wanaag waa midka lagu magacaabo Seaboy midkaas oo dhalay qaar kamid ah cagabaruurada halkan jooga balse midaasni ma aha mid damaanad qaadaysa inuu u fidinayo soo dhaweyn wanaagsan. waa mid dusha kala socda dhaqdhaqaaqooda wuxuu ilaalinayaa habdhaqankooda iyo ficilada ay muujinayaan markuu ka agdhoway waa markii koobaad aynu aragno isagoo ku dhex jira ama ka agdhow raxanta inta kale weli ma aysan ogolaansho buuxa midkaas oo ku soo dhex gali karo. waxay haatan u soo dhawaanayaan midka labka waxay ugu imanayaan salaan balse isagu boqolkiiba boqol ma aqbalin. kalsoonida lagu qabaa way kordhaysaa gabalku waa sii dhacaya sidoo kalena kuwa dhadiga way ku soo xoomayaan midkan dhadiga iyo cagabaruuraduba waxaanay ku muujinaysaa midani inay haatan kalsoonida soo noqotay. waxay noqonaysaa habeenkii u horeysay ee cagabaruuradan oo la qaadanaya Seaboy waqti sidoo kalena iyagu waxay noqdeen qaar ku soo ururaya ama ku soo xoomaya kuwaas oo doonaya in la ciyaaraan. midani ma aha khilaaf sidaas u sii ridan
tirabadnaanta kuwa dhadigii waxay keenaysaa iska caabinta iyo shakiga midka labka ah waana sababtu mar walba uu isagu yahay mid gaar uga baxa markay noqoto xagga weerarka iyo dagaalka markasta waxa aad u khatar badan kuwa dhadiga libaaxa waxayna tusinaysaa markasta kuwa dhadiga sida uga go'aanta inay difaacaan dhalahooda balse midkan Seaboy iyagu diyaar uma aha inay aad ula dagaalamaan oo guud ahaanba ka takhalusaan sababtuna waxay tahay aaga waxa ka dhow qaar laba oo aad u khatar badan waxay u baahan yihiin difaacista Seaboy naftooda iyo dhalahoodaba way uga baqayaan kuwan labka ah imaashiyaha Seaboy waxay aad ugu baahnaayeen kuwa dhadigii baqa ay ka qabeen kuwa labka ay aagani ka dhow inay soo weeraraan sidoo kalena aad waxay uga ilaashanayaan isaga laftiisa dhalahooda inuu qaarkood wax yeeleeyo waxay jeclaysanayaan kaaga dhawaanshihiisa waa mid aad u khatar ah oo ka badbaaday dagaalo badan khibrad badanna dagaalada u leh